بسم الله الرحمن الرحيم أرنتا بدأ مركان كهلا رنتي هرت أنا وحنو أركا أرنتا بدأ إن أي تاي أرن حنون بدن أمرجله وحنو أركا سوماليا كل سجال بقول لحد كي حرنما قاتي لبدا كل لبعتن يكود أنا ما أنت بدأ هذا الأسبوع هيستا أيضا حلقة حرنما قاتي أنت أصلا بدأ هذا أيضا لهيت للي هي سببتنا ضد سوماليا سببه هاي وحنو أركا أرنتا سنة تنصيب حمو مركا كوبان marka labaad waxaan u arkaa kiiska badda maanta taagan in uu meel fiican yaallo inay Soomaaliya ku guuleysani inaan kalsooni badan qabno Kenya waxay u warwareegayo ama dib loo dhigo u leedahay ama u warwareegaysana ay tahay kalsooni xumo ayaan qabaa waxaan qabaa inaan baddaas ku guuleysanayna waxa kale oo halkan ugu faa'iideysanayaa ummadda Soomaaliyeed dhulkeena annaga leh baddeena annaga leh gorgortana kama galayno maxkamad ha xukunto ama yayna xukumin annaga ale waxaan la soconaa oo hadda ila xoogaal maanta ay soo baxayaan badda in dib loo dhigay Kenya ay ku dacwatay inaysan dacwada diyaar u ahayn halka ay Soomaaliya ka tagtay badda in ay u dacwato maxkamadda taas oo dawladda federaalka ay ka dib dhacday sidii loo rabay 4 sano inay badda u maarayso aysan u maaraynin waa qodob dhaliil oo dawladda federaalka la jiro qodobka kale badda inay dib u dhacday dacwadeedana ay dawladda dambe oo Soomaaliya systemku noqon doono ayaan information ku haynaa qoladiina TV-gana waa maasantiin ku dadaala badda iyo bariga inaysan dhumin waxa hadii dacwo la isku qabsado cid guuleysanaysa Ilaahay baa og cid guuleysanaysa Allahu a'lam laakiin anaga waa la haystaa waa in hab nadiif ah ka shaqeynaa haday aan ka guuleysanana waa alxamdulillah rabbil alamin laakiin hadii Kenya ay la guuleysatana hadii waa dood furan oo aan diraan naga rafcaan baan qaadanayna marna ma samrayn maadaama badda aan leenahay ugu dambeyn waxaan ku talinayaa badda dacwadeeda lama hagaajinin inay hagaajiyaan qoladan maamulka dawladda federaalka ah oo inay la kaashadaan saaxiibadood maamul goboleedyada أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلامية تيفيغا ناشن ميديا مقعي واسكري عبد الكريم إسماعيل قباية أجاد بان غفر حسنا هاي أرنتا دعوة بدأ sidoo kale waan ku soo qabnaa qareemada u doodaya badeena waa u jeedaan kallay waxaan soo wadaan kuwan Kenya waxay ku doodayaan wax dood amaahan maalinba maalin markii la joogo ay ka baxayaan macnaheedu sheegaan dacwadda waxaan jeclaan lahaa insha Allah inay soo yeeto guul run ahaantii waxaan u arkaa badda xuquuq Soomaaliya oo dhan ka maqan waaye in xoogga la saaro geed dheer iyo geed gaabanna loo fuulo sidii lagu soo dhici lahaay maxaa yeelay haddii kaasi maanta laga sabro waxaa laga yaabaa in kuwa kalena la kaga darsado hadda ayaa dhul naga maqan yahay oo xuduudda baynaadka Kenya iyo Ethiopia la sheegayo dhul badan xagga naga jiro haddana baddiyaa loo soo dhigtay haddana haddii tan aan ka daalno oon ka gaabino waxaa dhacaysa haddana inta kale in lagu darsado marka dadaal badan in laga muujiyo xooggana la saaro taasaan qabaa aniga horta dadkan waa isku caqiido waana iska keen xigaan laakiin hadda waxaa la muujinayo cadaaladda iyo waxaan la muujinayo waxaa fiican in maxkamaddaas lagu kala haro maxaa yeelay laba dirirtay ma heshiiso laba qafood oo ayaga diriray haddana ayaga ma heshii karaan annaga badaan ku diran Kenya wax badan aan ka tabanaynaa marka waxaa habboon maxkamaddaas la sheegay oo magaca sheegatay ee caalamka inay ida maaragtay wax ka qaban karto sheegatay id inaan ku dhamaysano haddii ay xataa naga hiiliso oo loo xukumo Kenya in dadaal kale la sii badiyo haddana aan la daalin taas ay la tahay